بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkeenu caawa wuxuu ku saabsan yahay cudurkan corona ilaahay subhanahu wa ta'ala marka hore waxaan ka baryaynaa inuu ummadda ka dul qaado intii ku dhimatay ilaahay u naxariisto inta u jiiftana ilaahay u caafiyo ummadana ilaahay ka badbaadiyo waxa ugu horeeya waxa waaye astaghfar iyo alla bari iyo ducooyinka nabiga sallallahu alayhi wasallam laga wariyay oo mawruudka in la badiyo tan isu dardaarmeen kubaataas waaye marka waxa jira talooyin ku aadan arimahaas oo madashu ay soo jeedinayso qaybo kala duwan sida dawladda ganacsatada shacabka guud ahaan iyo beesha caalamka mid ugu horeysa waxa waaye dawladdu inay kor u qaado dadaalkeeda ku aadan joojinta faafitaanka cudurkan iyo la tacaalida cudurka dadka uu ku dhacay sida in la helo qalabkii baarista iyo dawooyinkii loo baahnay iyo waxyaabihii looga hortagay oo ay ka mid yihiin dawooyinka loo isticmaalo nadaafadda dawladdu inay isku dubarido fikirka iyo aragtida iyo awoodda shacabka si looga hortago arrimahan in ay la wadaagto macluumaadka dhabta ah ee ku saabsan cudurkan faafitaankiisa inay la wadaagto waxa wada ogtihiin in jiha wareer badan oo ka jiro macluumaadka ku aadan cudurkan in dadka cudurkan oo ku dhaco in la helo meel gaar ah oo lagu daweeyo oo aysan naqanin kaliya in la karantiilo oo laga dhex bixiyo bulshada ay helaan dawooyinka ay u baahnaayeen sidaas oo kale in canshuur raaf loo sameeyo waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka dawooyinka iyo shidaalka talooyinka ku aadan aan isleenahay waa muhiim inay qaataan ganacsatada waxa kamid ayagana in la daryeelo loona weeciyo kharashaadkii ku bixi jiray iyo masaariiftii xajka iyo umrada sidaas oo kale zakooyinkii in loo weeciyo dadka dhibaataysan noloshooda saameynta oo ku yeelanayo cudurkan sida dadka shaqaalaha ah ee laga yaabo inay shaqadii aadi waayaan iyo dadka danyarta dhamaantood gaar ahaan barakacayaasha sidaas oo kale in la keeno waxyaabaha daruuriga ah sheeg in sidaas oo kale dawooyinka oo looga hortago waxa la socotin inay maalinta ka dambeysay si qaaloobayaan ganacsatadu inay waajib is saaraan inay noqdaan wax mutawafir ah oo la heli karo oo suuqa yaala inay noqdaan waxa jira talooyin ku aadan dhaqaatiirta Soomaaliyeed meel joogaanba ayaguna inay ka qayb qaataan kor u qaadida wacyiga dadka iyo fahamka dhabta ah cudurkan iyo sida looga hortagi karo iyo sida looga bogsan karo waxaan la wada soconaa in kala aragti duwanaansho badan ay jirto arintaasna waxay qayb ka qaadanaysaa cudurku inuu san joogsanin inuu sii fido ay qayb ka qaadanaysaa iyo dhaqaatiirtu inay qorsheeyaan oo qoondeeyaan dhaqaatiir u taagan hawshaas ama ha noqoto wacyigelinta iyo la socodsiinta xaqiiqada cudurkan iyo faafitaankiisa ama ha noqoto daweynta dadka qadiyadan waa qadiyad dadka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed amaan taabanaysa marka cid walba oo qayb ka geysan karto oo dhaqaatiirta ay ugu horeeyaan iyo sidaan soo sheegnay ganacsatada dawladda iyo qaybaha kale bulshada ee waxtarka ah ama codkooda la maqlaayo inay dhamaantood u waajahaan si midaysan sidaas oo kale waxa jira talooyin ku aadan beesha caalamka oo madashu ay soo jeedinayso ah in la helo agabkii loo baahnaa sida agabka baarista dawooyinka ka hortaga iyo dawooyinka
kaalmeynaya qofku inuu bogsoodo in loo helo dhaqaale maxaa yeelay waxa la socotiin cudurradan oo kale waxay saameyn ku yeeshaan si xoogan dhaqaalaha marka dadka Soomaaliyeed meel joogaan in loo helo dhaqaale lagu caawiyo xaaladda adag ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed talooyinka ku aadan bulshada guud ahaan waxa kamid ah inay badiyaan faradhaqa inay dhaqan galiyaan talooyinka dhaqaatiirta inay dhaqan galiyaan sida kala fogaashaha in ay ku dadaalaan beeqaaminta waxyaabaha la haysto ama dawooyin ha noqdaan ama raashin ha noqdaan ama dhaqaalaha la haayo maxaa yeelay ilaahay anaga dul qaada laakiin lama yaqaano inta cudurkan oo soconayo lama yaqaano marka dadka Soomaaliyeed inay dhaqan galiyaan talooyinka dhaqaatiirta cudurkan waa aragtiin adduunka oo dhan ayaa ka qaylinaya marka inaan iska madax adeegno macna ma sameynayso talooyinka in la qaato talana waxa ugu fiican midda ka hortaga dhaqdhaqaaq aan loo baahnayn inaan la sameeyno mesela meelaha lagu badan yahay hadii baahi daruuri aysan jirin inaan la aadin oo laga joogo waxyaabaha hadda aad looga hadlo waxa kamid ah salaanta qofka hadaa tira assalaamu calaykum waa ku filanta marka in ayadana aad loogu dadaalo runtii waa marxalad adag yaan dhihi karnaa oo dadku ay marayaan waxayna u baahan tahay in loo wajaho si midnimo leh loogana leysuna abaabulo sidan ka duwan waxaan dareemaynaa in wacyiga ku aadan cudurkan iyo dadaalka ku aadan laga soo bilaabo dawladda ilaa shacabka inuu aad u hooseeyo waxaan soo jeedinaynaa marka kor in loo qaado waxyaabaha aan rabno dawladdu inay sameeyso aan kula talinayna waxa kamid ah wada shaqeyn inay la sameeyaan dawlad goboleedyada oo loo midoobo maxaa yeelay arrintan siyaasad ma aha waa arrin insaani ah waa arrin khusayso qof kasta oo Soomaaliya marka inaan la siyaasadeyn oo siyaasadda laga saaro waxay abuuri kartaa aan leenahay jaanis dadka Soomaaliyeed ay ku midoobaan oo ay uga gudbaan waxyaabo badan oo caqabado dhexdooda yaala aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.